madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdigu hogaaminayay waxay soo gaareen magaalada Nairobi halkaasoo berri uu kaga qaybgeli doono shir caalami ah oo ku saabsan arrimaha dadweynaha iyo horumarintooda. Shirkaasna wuxuu socon doonaa muddo 3 maalmood ah waxaana lagu lafaguri doonaa mawaadiic muhiim u ah dalkeena oo waxbarashada iyo caafimaadka ugu muhiimsan yihiin oo runtii aan baahi badan u qabno. waxaan rajeynaynaa shirkan inuu noqdo shir miro dhal ah Soomaaliyana ajandaheeda ay ku soo bandhigto.